howlgalka midowga Afrika ee ATMIS oo geesiyaal ku tilmaamay General Odowa Mahad Salaad iyo General Biixi awoodda ciidanka xoogga dalka iyo macwiisleydana si rasmi ah uga hadlay ciidankii ku maqnaa Eritrea oo si degdeg ah dalka u soo galaya iyo meelaha ay ka howlgali doonaan oo la calaamadeeyay iyo siyaasiyiin looga shakisan yahay in Al-Shabaab ay xiriir la leeyihiin oo bilaabay fashilinta howlgallada ka dhanka ah kooxdaasi muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad ka daawanayso page-keena nagu soo biir like iyo follow dheh muuqaalka la sii wadaag asxaabtaada kale markasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga mahadcelinayaa had iyo goorba sida muuqaaladeena aad u daawato howlgalka midowga Afrika ee ATMIS maalmo ka hor warbixin ay soo saareen waxa ay ahayd mid ay si weyn uga caroodeen guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed taasi oo ay ku muujinayeen in iyagu ay qayb weyn ka qaateen dagaalada Al-Shabaab lagula jiro ee lagala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Galgaduud iyo weliba Hiiraan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS magaciisa loo soo gaabiyo ayaa qoraal ka soo saaray guulihii ugu dambeeyay ee ay gaareen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda oo isgarabsanaya ATMIS ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay soo bandhigeen awoodooda taas oo suuragal ka dhigtay in Al-Shabaab ay kala wareegaan deegaano ay in muddo ah gacanta ku hayeen qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tallaabadan ay muujinayso in ciidamada dawladda Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga dalka isla markaana ay guud ahaan dalka ka saaraan kooxda Al-Shabaab ATMIS waxa ay ku adkaysanaysaa in ciidamada Soomaaliyeed oo si xirfadaysan u tababaran oo si wanaagsan u qalabaysan ay runtii yihiin kuwa wax ka bedelay dagaalkii ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab AMISOM ayaa u muuqata in si degdeg ah ay u bedeleen guud ahaanba waddo kasta oo macquul ka dhigi kartay in ay u arkaan ciidanka xoogga dalka inay yihiin kuwa aan awood u lahayn hanashada amniga dalkooda sida ay horey u sheegtay ATMIS waxa ay muujinayaan iminka wax ka duwan wixii ay ka aaminsanaayeen ciidanka xoogga dalka iyagoo si gaar ahaaneed farta ugu goday General Odowa General Biixi iyo taliye Mahad Salaad inay qaadeen tallaabooyin dheeraad ah haddaba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ciidankii loogu tababarayay dalka Eritrea ay dalka si degdeg ah ugu soo celiso isla markaana ciidamadan oo tiradoodu ay gaarayso 5,000 ayaa la filayaa in ay ka qayb qaataan howlgallada looga soo horjeedo Al-Shabaab wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay qorshaha dawladda ee dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea isagoo shaaciyay in dalka dib loogu soo celinayo sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada lagu tababaray Eritrea waxa ay soo laaban doonaan inta uu socdo howlgalka haatan dalka oo dhan ka socda ayuu yiri wasiir Fiqi sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dawladda ay diyaarin doonto meelihii la dejin lahaa askartaasi iyo agabkii ay ku howlgali lahaayeen sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale waxaa aad iyo aad isha loogu hayaa siyaasiyiin looga shakisan yahay inay fashilinayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab kuwaasi oo gobolada dalka ku sugan dadka qaar ayaa qaba in siyaasiyiinta furmaha hore ee dagaalka ku sugan qaarkood aysan daacad ahayn isla markaana la oran karo waxay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab iyadoo loogu baaqay mas'uuliyiinta hogaaminaya dagaalka inay ka feejignaadaan shakhsiyaadkaasi Al-Shabaab ayaa hadda culaysyo badan wajahaya hase ahaatee waxaa loo arkaa in weli ay ku harsan yihiin deegaano istiraatiiji ah oo guud ahaanba gobolada dalka muhiim u ah iyadoona saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo ugu horeeyo General Odowa Yusuf Raage ay ku adkaysanayaan in howlgallada ay sii socon doonaan muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid kani waa kitaabka Ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada haddii baad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku egtahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba majaanis ma u weyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasta oo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto quraanka kariimka waalid weynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka
waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online